So waa in salaamay mar kale soo dhawaada waxa weeyaan aan ku durqo pointiga hadalkeena badinin haddii aad in badan chansiyo aad jeclaan lahayd inaad Turkey citizenship aad wax ka ogaato amaba aad noqotid haddaad ku qori jirtid internet ku saaran how to be a Turkish citizen or something haddaad maxaa internetka ku qori jirtay chances to be Turkish citizenship kan waa video gaaban oo ku caawinaya waxa weeyaan Turkish citizenship waxa weeyaan ruleski hore haddii aad la socotay oo kale ruleska waa la bedelay tusaale ahaan ruleski hore mar walba probability lagu bedeli karaa jira tusaale ahaan hoos dhaca ku yimaadeen Turkiga la qaato passportiga sababtoo mar walba passportka Turkiga waxa qaadan jiray dadka inta badan Middle East ka yimaadaan Saudi Arabia Qatar meelaha Kuwait oo kale laga yaabo inay wadamo haystaan laakiin mar walba protection always ay u qaadanayaan wadamo kale oo awood leh oo kale after all dadka inta badan qaata muslimiin ma ahaanaynin because hadda Turkish citizenship wadan qaato oo kale caalamul islaami waa laga yaabaa inuu faa'iido badan ku soo kordhiyo aad bay u badan tahay maadaama uu saameyn ku yeeshay hadda Middle East uu Turkiga saameyn badan ku leeyahay saameyn aad u weyn oo kale passportigiisa dhinacaas wuxuu ka caawin karaa laakiin hadday noqoto inaad u qaadanayso passportigiisa warwareegi waxaas for example UK somehow meelahaas oo kale maxanahay reject in lagu siiyo u badan taado passportka Turkiga haysta somehow awood noocaas ma lahan yani laakiin marka loo dhigo tusaalahan inaad hadda wadamo oo kale aad haysataa jirta aad visa laan ku tagi karto for example Thailand oo kale somehow South Africa oo somehow dad يعني باسبورتيga Turkiga oo kale yani wadamadaas oo kale uu ka caawinaa Middle East dhexdiisa oo kale uu ka caawinaa baasaboortiga marka inta badan dadka qaadanaya baasaboortiga lacagta spend gareynaya u badan yihiin dad Middle East oo lacagta haysta laakiin protection always ama wax noocaas plan noocaas laha oo kale inay u qaadanayaan laakiin ruleska waa la bedelay hoos u dhac iyo wax ku yimaadayba ruleska waa la bedelay way dhib yartaa ruleskan dambe kuwii hore marka loo bandhigo yani tusaale ahaan markii hadda la qaadanayo baasaboortiga awal wax weeyaan waxa loo qofka uu ku gadanayo oo kale $500,000 buu ku gadanayay baasaboortiga for example $500,000 after all horta videogan waxa weeyaan oo kale ta markii loo qaadanayo baasaboortiga Turkiga sida lacagta loo qaadanayo sida joogista maaha sida joogista aan ka hadli karnaa hadii idinku aad jeclaataan laakiin for example hadda waxaan ku hadlaynaa waa sida dhaqsada sida lacagta loo bixsanayo yani aad rabto inaad kalato oo kale baasaboortiga so $500,000 half million almost meelahaas baad bixinaysay then baasaboortiga waa lagu siinayay laakiin right now something changed يعني half million هذا يهد $250,000 baa laga dhigay farqiga weyn yahay farqiga u dhaxeeya aad buu weyn yahay $250,000 baad bixinaysaa dan baasaboorta waa lagu sameeyay months yani for example wadada labaad waxa waaye half million laakiin half million kan ma spend gareynaysid kalaad as a deposit waxaad u dhiganaysaa bank Turki ku yaala yani bankiyada Turki ku yaala mid kamid ah ee Turkida leeyihiin ama bank wadanka uu leeyahay baad $500,000 as a deposit u dhigaysaa then waxa ku dhibiraanaysa marka inaad qaadato Turkish citizenship inaad qaadato ayaa ku dhibiraanaysa oo kale rules waxa kamid ah in aad company samayso and then inaad content shaqaale aad shaqaaleysiiso oo kale ruleska ayay kamid tahay so kuwan waxa weeyaan lacagta oo kale waana wayska cusub oo kale waana wayska ku caawinaya oo kale all the time waxa baasaboortiyada gata waxay u badan yihiin dadka Middle East dadka inta badan wadamadaas oo kale baasaboorta Turkiga san hore idinku sheegay fully ma aha yani wadan walba ku aad ku tagi karto ma asafiri yani sida wadamadan waaweyn oo kale ma maleynayo qof USA passport haysta ku bedelinayo Turkish citizenship because ma soo agdi kartid laakiin as a western friend inuu ka caawiyo Middle East laakiin Turkiga for example as Islamic ahaan buu ku caawinaya wadamada Middle East aad yani saameyn weyn u leeyahay waqti xaadirkan so rule kan waa kuwa ugu dhibteer markii loo dhigo dhanka lacagta weeyaan waana kuwa updated right now adiga waad eegi kartaa for example website kan oo kale wuxuu ku tusayaa qaabka oo kale insha Allah mar ayaan insha Allah idinka sheekeyn doonaa asaga oo ah waa joogitaanka oo kale waa inaad maxaan dhahay aad 5 jir ka weyntahay oo kale and then aad sanadkan aad wadankan 5 sano joogtay laakiin asaga 5 sano unba ku leeyahay laakiin waa markii aad fiisa tourist haysato tourist waa inaad 5 sano ku joogto oo kale insha Allah information kan aan ka hordhicin aan hadda idin taabtay iyo kuwa lamida oo ah kuwa maxaan dhahay joogitaanka waqtiga dheera iyo waqtiyada maxaan dhahay aan degdeg ahayn oo kale insha Allah waynu ka warami doonaa markii aad idinku soo sheegtaan insha Allah inaad diyaar u noqotaan waxaan idin rajaynayaa inuu videogan idin caawiyo is arag dambe